soo noqday video kale videogeena maanta waxaan ku eegaynaa dhacdooyinka adduunka channelka dadku cusubtiin subscribe share like aad bad mahadsantiin waxaan eegaynaa 13 dhacdooyin aad ula yaab badnaa runtii iskoorad iyo kaalimo ku haysta adduunka waa dhacdooyin aad iyo aad ula yaab badan anu waan la yaab idinkana ila eega waxaan eegaynaa dhacdada 13aad dawadayaal dhacdada 13aad saad u aragtaan waa naagta ugu toobka dheer leh naagtaas toobkeedu waa 656 wuxuuna arooskaasi ka dhacay China inkastoo hadda iskoorka waa laga qaaday naagta ka qaaday toobkeedu waa 4460 waxaan eegaynaa dawadayaal 12aad gabadha haysata kaalinta 12aad okay dawadayaal wada aragtaan kaalinta 12aad gabadha haysata waa gabadh u dhalatay Ukraine runta toobkeeda amba arooska toobkay xidhatay waxa laga sameeyay macaan ukun daqiiq sonkor ayaa laga sameeyay ninkeedu waa chef gabadhaas runta waa loo sheegay inuu toobku haday in dhaqaaqdo inuu daadanayo waayo waxan waa macaan saasay tahay way ku gashay gabadha magaceeda waxa la dhahaa Victoria arooskaasi wuxuuna dhacay 2008 arooska 11aad ee la yaabay adduunka ka dhacay arooska saad ila aragtaan wuxuu la yaab wuxuu ku yeeshay fargalada la wada xirto caadi oo looma xiranayo fargalka gacanta la daloolinaya runtii hadii aad qofka islaysan inta soo saartay inaad turta laga ma yaabo saa darteed fartay u gashadaan aad baan loola yaabay waxaana la siiyay kaalinta 11aad ayaa la siiyay runta fargalada la dalooliyo waa yaabna kaalinta 10aad qof kasta arooskiisa inay qurux u noqoto axsuus la yaab inay u noqoto waa uu raba laakiin arooskan aan hadda eegin aad ula yaab badan tahay saad u aragtaan bariis baa la isku shubaya sida ubaxa la isku daadiyaa camal digaagada sida waxa loo tuuraya ubaxa aroosadu ay tuurto camal runtii waa wax la yaabo waan la yaabay aniga kaalinta 9aad waa arooska ka dhacay Japan 2010 waa aroos la yaabo labadu waxay ka shaqeyn jireen company-ga la yiraahdo Kokoro Robots ay ka shaqeyn jireen arooskooda ma meherin sheekh ma meherin cid kale waxa meheriyay robot iyagu gacantooda ku sameysteen runtii adduun weynana la yaabay kaalinta 9aadna waa la siiyay robotka isku meheriyay mitirkiisuna 4 mitir buu ahaa runtii wax la yaabo adduunweynaha iyo dadkii arooska ka soo qayb galeenba aad bay la yaabay waxa eegana kaalinta 8aad kaalinta 8aad asxaabe aad bay uga darantahay kuwa kale aroosadaas sida loo sugayay taash inay ku soo baxdo waxay ku soo baxday xafaayad wala aragtaan xafaayadaha caruurta ayay taash looga sameeyay xafaayadinta la isku toltolay ayaa taash dheer looga sameeyay aad bayna loola yaabay adduunyahanna uu la yaabay runtii kaalinta 8aadna way haysataa waxaan eegaynaa kaalinta 7aad kaalinta 7aad waa naagta guursatay Eiffel Tower ku taala magaalada Paris runta waa bir dheer loo dalxiis tago waa taqaanaan baan filaya naagtaas 10 sano ay birtaa jeclay runta waa wax la yaabo waxa la yiraahdaa iyada magaceeda Keenan Eiffel OS magaceeda macal waxay ku darsatay ninkeeda macnaha nin camal ay u haysataa birti deesaad shaashada uga aragtaan aad baan la yaabay anigu aad baan la yaabay runtii qof bir guursaday iyadoo adduunyahana sidoo kale kaalinta 7aad ayaa la siiyay wali ilaa hadda way isqabaan qof kale ma guursan sidii bay inay jeceshay sheegtay arooskeedana wuxuu dhacay 2007 runta asxaabe ma la yaabteen wax la yaabo qof bir guursaday waanu qaadan waayay waa arooska 6aad
qofka wuxuu ku guursadaa hotel, qof wuxuu ku guursadaa gurigooda loo hagaajiyaa, qof meel buu ku guursadaa. aroosadahan laakiin waxay ku dhigteen arooskooda biyo dhexdooda, yaxaas ayaana u mixiisadaha saad u aragtaan sawiraantooda. yaxaas ayaa u mixiisadaha. sababtay taa u dhigteen waxa weeyaan yaxaaska ayay aad iyo aad u taageeraan ama jecel yihiin. waxaa eegaynaa arooska shanaad ee lala yaabo. arooska shanaad runtii qofba wuxuu jecel yahay ayuu muujiyaa. aroosadahan saad halkaa uga aragtaan filimaan lagu matelay, dhar filimaan lagu matelay ayay xidhan yihiin. filinka waxaa la yidhaahdaa Star Wars. waa filin hore u dhacay amba qaraami aha. xasuusahoodii bay macala ku reebeen dadkii. runtii aad buu u shidnaa. laakiin kuwa kale u dhaama daawadayaal, kuwa kale u dhaama. mid bar guursata u dhaama dharka filimaanta inaad xidhatiin. waxaa eegaynaa arooska afraad. arooska afraad wuxuu ka dhacay Britania 2013. runtii arooskaasi waxa loola yaabay. arooskaas wuxuu ka dhacay McDonald. runtii dadka qurbaha jooga si fiican ay u yaqaanaan. waa meel laga cuno burgerka oo kale, cunto fast foodka laga cunaa. arooska gebigiisaba qarashkiisa wuxuu ku baxay 150 pound. runta waa qarashka ugu yar adduunweynaha arooska ka dhacay. waa qarashka ugu yar lagu aroosay. adduunyuhuna la yaabay kaalinta afraad. inkastoo Mareykankuna hadda ay bilaabeen inay McDonald oo kale, KFC oo kale inay arooskooda ku dhigtaan ee qarashka arooska ay yareeyaan. saasay tahay kaalinta waxay haystaan afraad. kaalinta saddexaad bay eegayna. kaalinta saddexaad wuxuu ka dhacay Scotland. runtii waa aroos lala yaab badnay. aroosaduhu markay uga harsan tahay maalimo daawadayaal, aroosada iyo caruuska iyo caruusada waa la uskageeyaa. ehel family dadka aroos kasoo qayb gala dhammaan qashin intay keenaan ay ku dul shubayaan. taasina waxay u muujinaysaa dhaqankooda ahaan inay adag yihiin, dhibaatana isla mari karaan. runta waa wax lala yaabo. waxaa eegaynaa kaalinta labaad. kaalinta labaadna wuxuu ka dhacay Scotland, isla meeshii weeyaan. waxaa la iska soo ridayaa bir dheer saad halkaa uga aragtaan. waxaa la iska soo ridayaa meel aad u sarreysa ayay iska soo rideen. taasina waxay u muujinaysaa inay meel sare macalaha dib dheer isla mari karaan, wax walba isla qaadan karaan. dhaqankooda ahaan saas ay ka wadaan. aad banay u adag tahay runtii inuu qof bili-aadana inuu iska soo rido meel aad u fog. waxaa eegaynaa kaalinta koowaad. kaalinta koowaad wuxuu ka dhacay South Korea. arooskaasna wuxuu la yaab number 1 u galay. caruus iyo caruusada maalinta arooskooda, caruuska dharka inta laga siibo waad aragtaan baan filayaa. saad u jeedaan lugaha laga tumaya. haddii 500 qof amba wax ka badan arooska kasoo qayb galaan, wixii kasoo qayb galay dhammaan lugtay ka tumayaan ninka caruuska. waxaanay uga wadaan ninka guursaday gabadha waa nin adag, u samri kara iyada. samirka ay eegayaan, samirkaa lagu tijaabiyaa. nin walba oo koori ku guursadayna arooskiisa lugaha laga tumaya. daawadayaal, haddaan dhaqankaa lahayn cidima guursateen annaga. haddii ninka ragga lugaha laga tumi lahaa ma guursadeen. runta aad bay u adag tahay, waana dhaqan aad u adag. daawadayaal, videogeena maanta intaas ku eegyahay. waxaan u malaynayaa inaad la yaabteen. haddii aad la yaabteen la wadaaga eheladiina, asxaabtiina. aniga aadaan la yaabay. 13 kaalimood ee la wada siiyey. kaalintaad aad ula yaabteenna commentka igu soo qor. haddaad jeceshiin wax badan oo dunida ka dhacay inaan idiin soo sameeyo videoyada, commentka igu qora. aad baad u mahadsantihiin. share, like, subscribe. waynooyo videoga dambe.